waxaan saaka u joognaa meeshaan inaan wareejiyo anigoo ah maamulaha shirkadda Golis Jariiban lacag shirkaddu ay ugu tala gashaday wadada wadaagsin oo runtii muddo dheer socotay waqti badanna qaadatay juhdi badanna laga soo maray inaan ku wareejiyo maamulka degmada maamulka wadada wadaagsin iyo odayaasha deegaanka aad iyo aad baan runtii ugu faraxsanahay shirkaddu inay baahidii ajiibtay oo hadda ka hor laga codsaday inay ka qayb qaadato wadada wadaagsin lacag waxay rabtaa shirkaddu inay uga qayb qaadato $6,000 oo ay ugu tala gashay wadada inay uga qayb qaadato aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa maamulka shirkadda Golis oo runtii aniga taladaydii iyo warqadii deegaanka ajiibay aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin sidoo kale waxaan mahad ballaaran u haynaa maamulka degmada Jariiban odayaasha iyo wadada oo ah dad sharaf leh ixtiraam leh si qadarin iyo mug lehna annaga shirkaddu aan ugu haysano ixtiraam ballaaran aad noo ixtiraamaan aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa waxa socda horumar degmada ka socda Jariiban aanu ka codsanay shirkadda Golis Telecom inay ka qayb qaadato waxay ka qaadatay qayb wanaagsan maanta oo bisha koobaad 2019 ah waxay nagu wareejisay lacagta kowda bisha sagaalaad 2019 waxay nagu wareejisay Golis agaasimaha degmada Jariiban lacag dhan 6,000 oo ay ku darsadeen oo kaga qayb qaateen wadada wadaagsan aad baan ugu mahadcelinaynaa waa soo dhaweynaynaa ka maamul ahaan iyo ka degmo ahaan iyo ka odayaal ahaan waxa jooga nabadoonada degmada waxa jooga wadada wadaagsan waxa jooga maamulka degmada Jariiban waxa jooga dhammaan dadkii degmada Jariiban qaybihiisa oo kala duwan waxaan u gudbinaynaa mahad ballaaran waxaan u rajaynaynaa duco ay naga mudan yihiin waxa ka guddoonay lacagtaas 6,000 ah waxaan aad iyo aad ugu baaqaynaa dadka kale oo iyaga la mid ah shirkadaha kale dhammaantood inay ka qayb qaataan wadada wadaagsan oo shaqo aad u xoog badan ka socoto wax badan socotay ayaana socon doonta ahna tuurdibi ilaa garacad wax badan laga soo shaqeynayay waxaan ka codsanaynaa baaq u diraynaa dadka dhammaantiis intana arkaysa ama na maqlaysa ama na aqoonaysa inay ka qayb qaataan baan saaka halkan waxa ku guddoomahaya cid ku haboon oo xaq u leh marka hore ilaahay baa mahad iska leh ilaahay baan u mahad leh marka labaadna waxaan u mahad celinaynaa shirkadda Golis oo nagu cusub haatan hadda ka hor anna wali wax weyn oo ay leedahay laakiin aanu maleynaynaa hadda kadib wax badan inay ka imaan hayaan wax badan inay uga qayb qaadan doonaan uurkana aan ku haynay oo aanan shakisanayn inay ka qayb qaadan weeyaan ogeyn inay ka qayb qaadan doonto saakana si mugla uga qayb qaadatay waxaan idin leenahay Golis aad baan u mahadsantihiin aad mar labaad iyo mar saddexaad waxaan rabnaa intaan kaliya ma ahee mararka ka dambeeya marka ka dambeeya inaad ka soo badisaan oo ka soo qayb qaadataan aad baan idinka rajaynaynaa midda kale waxaan u mahad celinaynaa ilaah weyn kadib qolada wadaagsin kambarigaan u mahad celinaynaa maamulkaan u mahad celinaynaa intii juhdiga iyo dagaalka u gashay baan u mahad celinaynaa intii soo abaabushay intii soo agaasintay iyo intii soo aqbashaan u mahad celinaynaa rahiim alxamdulilaahi rabbil caalamiin ilaahay baa mahad leh ilaaha halkan isugu nimaano inoo haysiiyey ayaa mahad leh mahad celinaynaa waxaan kaloo u mahad celinaynaa shirkadda Golis oo saaka halkaan aan u joogno lacag ay horumarina oo ay ku bixinayso wadada wadaagsan oo mashaariicda ka socota degmada Jariiban kamid ah aad iyo aad baan iyagan u soo dhaweynaynaa waan uga mahad celinaynaa deeqda ay degmada ay ugu yabooheen guud ahaan wadada wadaagsan gaar ahaan degmada Jariiban iyo deegaankeeda waxaanu kaloo baaq u diraynaa inta kale oo iyaduna na maqlaya ama na garanaya aniga magacaygu waa Cabdi Cali Suuriyaan waxa weeye degmadan mashaariic badan baa ka socota dekad baa ka socota jid baa ka socda waxa ka socda kuwa kale oo iyaguna magaalada hadda laami ayadana la marinaya ka socda dhammaan waxa weeye waxay ku socdaan waxa weeye isku tashi bay ku socdaan waxaan marka inta kale oo ugu baaqaynaa oo na arkaysa ama na maqlaysa
hadday yihiin walaalaha iyo dibadda jira oo diaasbarada hadday yihiin gobollada hadday tahay dawladda hadday tahay shirkadaha kale oo kambariyada kale oo ganacsiga hadday tahay ganacsiyaadka shaqsiga loo leeyahay hadday tahay dad shakhsiyaada oo wax sadaqaysanaya oo sadaqa jaariya wax la baxaya dhammaan waxaan ugu baaqaynaa inay nagala soo qayb qaataan aniga magacaygu waa Warsame Axmed Shido Warsame Qolofey waxaanu waayahan ku dhex jirnay barnaamijyada badan oo mashruuciyo ah oo ka socda degmadan Jariiban iyo dhammaan gobolka Mudug mashaariicdaas qaybina waa wadada isku xidha Galdogob iyo Garaacad oo iyadu ah tabarucaad iyo sadaqa jaariye ah iyo barnaamijka dhismaha dekada Garaacad oo asagu ah barnaamij maalgashi ah waxaan saakay xafladan u qabanayo goobtan wadadaas socotay oo ka soo bilaabatay Galdogob Garaacadna galaysa shaqo ka socotay intii muddo ah oo maalin waliba aanu qolo u soo bandhigaynay oo kaga qayb qaadanaysay lacag 6,000 ah oo ay nagu wareejiyeen maamulka shirkadda Golis maamulaha shirkadda Golis ee degmada Jariiban waxaan leenahay waa idinka guddoonnay dhaqaalahaas wadadaana gelinaynaa idinkana waxaan leenahay wixiina Allah idin barakeeyo cidii soo maamushay iyo cidii mulkiyadeeda lahaba waxaan leenahay Allah idin barakeeyo marka koowaad aad iyo aadna ugu mahadsantihiin marka labaad wadadaas Galdogob iyo isku xidha Garaacad markii la toosiyo 302 kiiloomitir weeye waxaanu u qorsheynay balaam ah qaybteeda koowaad oo carakaawada ah maadaama la isticmaalayo hadda waxa la isticmaalayaa qalabkii hay'adda BHA oo dawladda ay tahay uusan qalab kira ahayn halkii kiiloomitir $5,000 waxyaabaha rani koostiga ah oo shidaalka iyo shaqaalaha raashinkooda iyo isbeer baartiga in lagu bixiyo baan u balaan garaynay qolo waliba jaaliyad waliba iyo company waliba iyo shakhsi waliba oo meeshaas hanti gashadana waxaan ugu talagalay tabeelo weyn inaan magaciisa ku qorno dhaqaaluhu la baxay iyo dhaqaalihiisi meesha uu galay tilmaamaya koow labo wadadaas maadaama aanu 5 kiiloomitir 5,000 loo balaan gareeyay jaaliyadaha hadda ka soo qayb galay jaaladi walba waxaan uga taagnay intii ay dayactirka ku samaysay oo wadadaas ay shaqadeedu gashay oo lacagteedu qabatay ayaan tabeelo uga taagnay tabeelahaas waxaan ugu talagalay dayactirka ayadoo inay dayactirato mustaqbalkana laami saarata iyadu wadadaas ay tahay jaaliyadaas ama shakhsigaas ama companygaas in ayagu inta u xadidan tahay saakay lacagta Golis keentay oo 6,000 waxaan malaynayaa waa 1 kiiloomitir iyo waxa weeye iyo boqol waxa weeye mitir Golis waxaan leenahay koow shirkad loo hanweyn yahay oo dalka dhaqaale badan gelisa shaqo abuur fiican samaysa dalka la horumar badan ka samaysaa tihiin waxaad bixiseen waa idinkaga mahadcelinaa waan idinkaga ducaynaynaa waxaan idin soo jeedinaynaa intaan oran lahayn Golis 1 kiiloomitir baanu Golis u calaamadinay ugu yaraan 10 kiiloomitir inaad wadada ka qayb qaadataan oo aan tabeelayaasheeda idin diyaarna lacagta idin dhimana soo dhamaystirataan intaasaanu maamulka iyo madaxda sare oo Golisna baaqahan ugu soo jeedinaynaa degma ahaan iyo deegaan ahaan uga codsanayna midaan maanta ay noogu soo gudbiyeen u guddoonay ogana ducaynayna